dadkii isla socday dhexdooda ka bilaabatay intaan macaaradkii la soo gaarin kuwii wada socday bay ka dhex bilaabatay idan waxay baaba'day muru'adii dawladnimada baaba'day xishoodkii dawladnimada baaba'day haybadii dawladnimada baaba'day inay dawladdu waxyaalo qaarkood ka xishooto oo ka istaagtaa baaba'day sidii ciyaalkii meelaha haduu aan guriyaha darjinooyinka fadhiyay qaabkay isula dhaqmi jireen bay dawladda iyadii u dhaqmaysaa khiyaano cad bay sameynaysaa waxaad arkaysaa in wax la yaab la inuu madaxweynaha nagi la soo istaago yiri haba yaraate dastuurku waa wadaynaa mana joojinayno waa wadaynaa haddii aanu ku guulaysanana ma quseeyo dawladda hadda joogto ma quseeyo baarlamaanka hadda joogo sida international koolis ku raacsan yahayna waxay tahay in dawladda ka dambayso sharcigaas u dhaqan galay maantana waxaad ogtihiin inuu leeyahay madaxweynihii gudoomiyaha baarlamaanka isku raaceen hadda dhaqan gelinayna waxa la yaab loo hadaan ku qoslaya wali wasiiradii baa u shaqeynaya dastuurkan waxa ku qoran in xildhibaan wasiir ma noqon karo wasiiradii wali u joogaan meeshii marka waxa dhimatay diinteena islaamka rasuulku wuxuu sheegayaa ninka madaxweynaha inuu been sheegi karo hadduu beenaalo noqdana maalinta qiyaama ilaahay saddex wuxuu ku jiraa talaatun laa yanzuru Allahu ilayhim walaa yazakihim walaa ilaahay uusan dembigooda dhaafaynin oo hadduu alla ku sameeyo xadiis qudsi oo dembigooda dhaafaynin oo hadduu alla ku ilaahay u fiirinaynin oo ilaahay wax hadana ka lahayn saddexda qof waxa kamid ah nin madaxweyne ah oo waxa kamid ah qof waayeelo zaani ah oo waxa kamid ah mastiin mutakabir ah waxa kamid ah madaxweyne been sheegay asaga baa madaxweynihii dalka oo ilaahay awood u dhiibay maxaa beenta u geystay beenta waxa lagu yaqaanaa qofka daciifka siisaba qofka daciifka ah baa beenta lagu yaqaanaa oo kaalmaysto maxaa u keeni karo in madaxweynaha uu been sheego saadiradeed buu ku mutaystay maalinta qiyaama ilaahay inuu safiirinay aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina aamanu lima taquluna ma la taf'alun war waxaadan sameeyeen waxaad u leediin kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ilaahay caraada ugu weyn waxa weeye waxaadan sameeyeen dhahdaan idan madaxweynaha naga naftiisina waa halaagay nidaamka dalkana waa halaagay asagana waa ishalaagay ummadina waa halaagay ilaahay naga soo gaaro waxa marka la yaab la marka waxa dhan wax walba xishood ah waa tagay haybadii dawladnimada waa tagtay qofka dawladda inuu seere leeyahay baa loo baahan yahay meel ku egyahay wax alla wixii sharafta madaxweynimada ay u diidi lahayd oo dhan u banaystay horta dadkii soo istaago wuxuu doono iska daa marka wax lagu eedeynayay asagoo madaxweyne ahayn oo